السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان والله كسوماليد هل كان يقدر ونيا ميل والبو أشوكتان يسير البود إمغليسان وحندونا يا إن مقال كان كسو قد بيو لبا قضب ورنتي آد مهم واه وحمرك هور عندونا يا إن دول إستاغو مدحوين حسن الشيخ محمود أيا أوغلاضي هشيس كيف فوش حما شركة دي كوستلاين لأورنجري أمريكان كاهيد الدولة دي هوري محمد عبد الله فرماج أي ودي دي inay si fudud oo musuqmaasuqa ku qaataan toddoba ka mid ah xirmooyinka shidaalka ah ee ugu muhiimsan dalkeena ayaa maanta xasan sheekh maxamuud uu ogolaaday shirkad dheer oo arrintaas la xiriirta cidii u gacan gelisay dukumeenti xasaasi oo aan ka hayo baan soo bandhigi doonaa waxaan kaloo finally ka hadli doonaa oo qodobka labaad ah oo aan meel yar ka dul istaagi doono oo aan badnayn maxaa madaxweynaheena iyo dawladda Soomaaliya dhex geliyay dagaalka ka dhaxay Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka ee shidaalka iyo dhaqaalaha adduunka lagu hardamayo xageenu ka soo galnaa mise dalkeenu ma aha mid wax qorshe ah oo siyaasi ah leh wixii dhaqaaqaba waynu iska raacayna miya ma ana garan labada qodob baan falanqeyn doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si walba iyo maqlaysaan haddii aan ku bilaabo heshiiskaasi lala galay shirkadda Coastline la yiraahdo ee Mareykanka ah markii horena Soma Oil la oran jiray oo ayaduna horay Soomaaliya oga samaysay musuqmaasuq la xiriira shidaalka dalkeena markii dambe magac bedelatay markii ay caalamka oo dhan faashil ka noqotay oo musuqmaasuq iyo isdamarin looga yaabay bay magacii bedelatay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis si hoose ay u galeen shirkadaasi Coastline iyo wasiirkii hore ee batroolka ninkii la oran jiray Cabdirashiid Sheekh Khalow oo uu gadaal ka riixayo Rooble balse isqarinayay dibna aan ka soo ogaanay xogtiisa oo aan idana dukumeenti ka hayo cadeynaya sida Rooble uu qayb oga arintaasi heshiiskaasi waxa diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 10 daqiiqo ka bacdi buu Rooble waraaq kale soo qoray asaguna uu ku raacayo uu ku diiday si walba ha ahaato wuxuu heshiiskaasi u ahaa heshiis aan waafaqsanayn sharciga batroolka ee dalka isla markaana aan la soo marsiinin hay'adaha loogu talagalay in heshiiska noocaaya la marsiiyo heshiiskaasi wuxuu dhacay 8 March sanadan 2022 ayuu dhacay meel uu ka dhacayna lama garanayo marna waa Muqdisho leeyahay marna waa dibadda leeyahay laakiin xilligaas uu ku taariikhaysan yahay heshiiskaasi waxaan halkan ku hayaa dukumeenti ay qortay uu qoray ay raahdee wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya xilligaasi marka wuxuu ka hadlayaa wasiirku dhowr arrimood ayuu ka hadlayaa koow wuxuu ka hadlayaa waxa heshiiskaasi lagu xaarantimeeyay labo wuxuu kaloo ka hadlayaa dukumeenti ay weydiisteen shirkadaas inay soo dirto oo la xiriira heshiiskaasi ay galeen si loo fiiriyo heshiiska oo la yiri 7 maalmood ba haystaan soo dir oo ay diideen iyo decision-kii laga gaaray ayay waraaqdan ka hadlaysaa waa waraaq uu wasiirku u diray dhowr kooxood oo kala duwan ayuu u diray wuxuu wasiirku waraaqdan u diray kooxda ugu horeysa u diray waa Coastline waa isla shirkadii ayaa waraaqdan loo diray because waxa la weydiinayay in dukumeenti soo diraan waxa kale loo sheegayay inay fake tahay wixii ay galeen oo dawladdu ay diiday ayaga loo diray embassy-ga Soomaaliya ay ku leedahay dalkan Mareykanka loo diray madaxweynaha loo diray ra'iisul wasaaraha loo diray waxa kale loo diray auditor general-ka loo diray soo marka dadka ayo dhan baa loo diray si marka loogu sheego in heshiiskaasi uu been yahay inuu saxba ka jirin isababihii loogu diiday haddii aan waraaqda ku hormaro qaybta ugu horeysa waraaqdan waxa ku qoran sababihii ay dawladdu ku diiday ilaa 5 sababood baa ku qoran waxa ka mid ahaa inaysan jirinin heshiisyadii iyo sharciyadii dalka u yaalay inaan la soo marsiinin ama aysan waafaqsanin heshiiskani dalkeena sharci baa loo sameeyay la xiriira batroolka dalkii iyo shirkadii batroolka la galiyo heshiiska waa inay procedure ka marto number 1 procedure ki ma aysan soo marin number 2 madaxweynuhu looma sheegin dalka kama warqabo mana uu saxiixin ra'iisul wasaarihi kama warqabo arrimaha oo dhan ayaa lagu sameeyay marka 3 ilaa iyo 5 qodob oo arrimaha ay ka mid yihiin ayay dawladda Soomaaliya ku diiday markii la diiday kadibna xeelalayaha guud ayaa loo dhiibay oo asaguna investigation ku sameeyay asaguna wuxuu sheegay inuu heshiiskani ahayn mid aan waxba ka jirinin dawladdii hore ee Farmaajo markii ay sii dhacaysay labadii asbuuc ugu dambeeyay ayaa wasiirku waraaqdan diray
oo ay tahay conclusionkii diidmadii hore diidmo ka dambeysay oo conclusion ahayd ayay ahayd waraaqdan eegii baa loo diray embassiga loo diray wasaaraha xafiiskiisa loo diray cid walbaa loo diray oo conclusionku ahaa in heshiiskan uu yahay mid xaaraan ah dowladda Soomaaliya agteeda aysan waxba ka ahayn sidaa daraaddeed si dowladda dambe ee ola jaan qaado ayaa loogu diray cid walba oo meel walba reference baa la dhiga sidaa daraaddeed heshiiskaasi sidaasuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa yimaaday markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha hore ee Roble ayaa muddo sii shaqaynayay ayadoo xataa xamse la magacaabay uu sii shaqaynayay dokumentiga halkaad ka arkaysaan asaguna ciwaankiisu wuxuu yahay waa inuu Roble sharciyad u raadinayo heshiiskii xaaraanta ahaa oo asagu uu diiday taasaa muujinaysa marka Roble inay lug u aasnayd oo diidmadii hore waxba ka jirinin waayo xasan sheekh maxamuud oo jooga waa 28kii bishii May 2022 waa xilligii xafiiska lagu kala wareegay oo farmaajo uu xafiiska ku wareejiyay xasan sheekh maxamuud xamzana aan weli soo magacaabin muddo badan buu Roble meesha wasaare ka sii ahaa ilaa haddana saameyn weyn buu dowladdu ku leeyahay oo u dhigmata ra'iisul wasaarenimada ninkan xamsana leeyahay waa magacuyaal asaga iyo wasiirka arrimaha dibadda dad kala meesha ka shaqaysanaya Roble weli influence ku leh 28kii marka May ayaad ka arkaysaan dokumentiga ciwaanka leh ay warbaahinta caalamku ay qorayeen inuu Roble sharciyad u raadinayay in heshiiskaasi u shaqeeyo Roble waxyaalihi uu sameeyay waxa kamid ah inuu heshiiskaasi sharciyad u helay xasan ka dhadhiciyay haddana waa la yardaahay time baa la siiyay laakiin 28kii May ayuu xasan sheekh maxamuud ogolaaday in heshiiskaasi uu sidaa ku dhaqan galo aydan waxba aan laga bedelin waxyaalihii qodobada ahaa oo ay dowladdu ku diiday oo dhan ayadoo la taabanin ayaa dhaqaale loo qaatay Roble iyo Shaqaalow iyo xasan sheekh iyo nimanka la midka qayb bay ka wada yihiin in la boobo 7 xirmo oo ku ugu muhiimsan dalka Soomaaliya oo ku teedsan badda iyo birrigaba waxa loo gacan galiyay marka shirkadda Coastal Line la yiraahdo oo sunuud yar looga qaata 2 milyan 10 milyan 15 milyan I don't know oo saxiixa looga qaata waana billion dollars way October baan idin sheegay 8deedii in sanadka oo dhammaan xasan sheekh maxamuud uu gali doono heshiisyo shidaal maadaama shidaal laga waayay Kenya ee shirkadaha dhan ay u soo jabi doonaan bal muuqaalkan waxay la daawada madaxweyne xasan sheekh maxamuud shirkadaha soo kala yaacaya uu la gali doono heshiis maxaa la yiraahdaa shidaal ah oo bonuska la doonay marka lacag in looga qaato xasan sheekh maxamuud waxaan aaminsanahay inta uusan yar ku dhamaanin dhowr heshiis oo kala duwan buu gali doonaa laakiin isha ku haya waqtigaana sheegi doonaa laakiin socodka badan ee madaxweynaha shirkadaha badan ee ka soo jabaya Kenya iyo xaalad Soomaaliya ka jirta contractyo badan oo xaaraan ah oo la yaab leh ayaa dhawaan dhici doona laakiin markay dhacaan baynu ka hadli doonaa halkaas dalka nagu maraya marka waxa la yiraahdaa nabraad filaysa naxdin ma laha oo idin sheegaya maantayto qof walba oo Soomaaliya wax garanaya waxana akhrin karaya waa inuu qayb ka qaata in dalka laga difaaca dadka noocaay oo kale oo doonaya in hantida ummadda iyo dalku leeyahay ee resource-ka in si free lagu qaato nimanka sida u shaqaynaya nimanka sida maanta sameynaya nimanka shirayto ka qaylinaya heshiiska markii la sameeyay xasan wuxuu ka mid ahaa nimankii heshiiskaasi markii uu farmaajo diiday ku eedeynayay farmaajo in heshiiskaasi ay qayb ka yihiin ilaayeen waxaa la galay wax loo yaqaano waxaa la galay dambi qaran baa la galay lahaayeen laakiin final ayagii baa ogolaaday markaysan waxaan idin sheegayaa cidii dan kale dalkaas iyo dadkaasiba waa inay qayb ka qaadataa sidii aynu uga shaqayn lahayn afka ku difaacin lahayna dhaqaale ku difaacin lahayna wax walba inuu ku difaaci karo resource dalka aan la boobinin oo inuu qayb ka qaadano way taa waa idin sheegaya cidii aan ogeyn iyo cidii aan raalli ka ayday u taala laakiin heshiiskaasi waa dhacay waana musiibo dalka iyo dadka u soo hooyatay ka warqaba waxaan kaloo finally aan ka hadlayaa qodobkii ugu dambeeya waxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ay soo saareen waraaq ay markaas uga hadlayaan inay Sacuudiga ku taageerayaan go'aankii uu ka qaatay arrimaha Mareykanka ay isku hayeen ee shidaalka waxa isweydiin mudan maxaa xasan asaga waxa ka galay where does he fit in that case markaysan maxaa ka galay waxa asaga xasan dalkanagi gudihiisii baynu dhaqaajin la'aanaha dagaalka al-shabaab lagu jeeno ka karlaana madaxweyne si fiican dagaalka loo galo muxuu ka qaban karaa arrintaas mini waa daqsi biibaya way meeshii 10 mataqaana dollar laga siinayo xasan
ودول dhigaya qadiyadiisa iyo aragtidiisa iyo dawladnimadii luga dul kufay ayuu meel walba miisku dul saaraya waa waraaq yar oo jeebka uu ku wata xasan dawladnimadii Soomaaliyeed iyo sharaftii iyo magacanagi ninkii $10 si ayuu miiska u saaray Ilaahay go'gi arkaysaan waa musiibo mana garanayo waxa inaga nooga imaanaya iskuma u daray xisaabta maxaa nooga imaanaya maxaa inaga galay maxaa inaga soo galaya hatta dul lacag ku qaadanaya hatta laga yaabaa inay imaan lahayd mar lacagta lacag ka fiican ku qaadan lahaa maray u baahan tahay in qaramada midowga laga coday maray u baahan tahay in maxaa la yiraahdaa lagu baryo intaan qaado ninkii ka horreysay 80 milyan bay Sacuudigu ku bareeyeen asagoo waxba la siinin buu asagoo halka ka codanaya markiiba waraaq soo saaraya ma ajanti Sacuudiga u shaqeeya mise dawlad iyo masiir ummadeed baa dusha ka saaran oo la rabaa inuu danteena ka fiiriyo iyo masaalixdan ilaasana waxaas miiska u saaraya عارف إن الفاينل كوسو قد بيو نمكن حل بعنا هذا الشيء جنا يي دالك هالك أو شو ما أنت كردي ده سموح كلا قبنينين هكا الله نشيس كوستل أنا لا جلاي ما سوقه الرب لحمر ولي أفريو رزارة وياه الشيء قالوا ولي أبوت كوشرو حسن الشيخ محمد كشلا قايل لي يي وما أنت قالي ككدوي كلي هكا الله هذا بحقبنا يومي أنا نقدر رزارة اللي ده حو الدين ما هي وحنا ودين ما حنا ما هي مسكين وين asaga ninka foreign minister ka aba labana masaakiina way yaxba laga sheegay magac loo bixin farax laga qaado laakiin waa in baarlamaanka nimankii lagu sheegayay inuu ku cadaadina marka in list bal ka hadla arta intaas aan ku soo koobaya inta dib isaga soo laabanayno aan ka tagay nabadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh